كسري لو فولي لا ولا اسكرها واو وريحني ما شاء الله gaariga Axmed baan raacnay inkastoo Soomaalida waqooyiga Amerika ama gaar ahaan wadanka Mareykanka ay imika aad ugu badan yihiin waditaanka gawaarida waaweyn xamuulka haddana taariikh ahaan Soomaalida ku nool wadamadan Afrikada bari iyo Afrikada Koonfureed muddo aad u dheer oo ilaa 50 sanadood ama ka badan ay caan ku ahaayeen inay ku shaqeystaan gawaaridan waaweyn ee kanoo kala Axmed baan hadaba kala sheekaysanaya bal hadda safarkii ugu dambeeyay imka xageed ka soo baxay Axmed waxaan ka soo baxay wadanka South Africa magaalada Richards Bay xuduud dawjilo kulay 300 kilomitir halkaas ayaan ka soo raray waxaan soo dhexmaray wadanka Botswana waxaan ka soo dhexmaray Zambia hadda ku dhex jirno waxaan uga soo gudbi doonaa Congo ديراني إذا كده سيدا سفر كده كوسعنا ما قرأت. مركز أحمد وافر وطن ماشي لقى صور رأي يمشي أطراف كجينيسا. أنت كوكو قاعدة صاد أفريقيا إلى كونغو. السعودية وحي قاعدة 18. 18. هل كان نوحن كواركا قاستي عن سلوك رسني سرير ولا كسرنا وكوكو تعلم ماشى. ده مركز ملورنا كرا ما هون قاري وجوري أو مخايط أو وحولبا. وحلورك قاري وجوري وشقدي وسلاموية. هذا يجرم بقدم أنا دي بنو سارن جاسكي بنو سارن وزارتي بسارن والباباك اللي جالس عنا كرسان سا وده كان وسك أمان واحد باتاك مجدو حالك واسد عبد السلام. مركب مبادئ أنت هتستاجتو. أيها رابطة والله سو كلا بحي سايو غاز تاضو دي نحوات كرسانسا ميلا waxay istaagaysaa baakinada oo baadiyaha istaagaysaa cunada wala soo dawaysaa waa karsanaysaa si nabada Axmedow imka 6 sanadood baad waday saadii sheegtay nin khabiiro baad tahay laakiin qofka Soomaaliga cusub wadamada doonayay inuu dhex qaaday isagoo gaarigan oo kala wada dhibaato intee lag baa markuu cusub yahay ka hor imanaysa سنبرت وعصبنا قفك عصب سوماليا توسن قاعدين راعين ترين بالاسيا باورتا أنا كحينا ودمنا صوبرنا ودلا سيد بورنا الوكروس صوبرنا كدنا سومالي سنبري وادن مسكح فرن هرايك الأبصار دبعتنا كباكم معنا مركا حالك واسداس نور حي وساعة صومرني سومالي ما كود ما كان صومرنا لكن مركز قاركود دباتين كوري بعد هذا والله مركز كود دباتين ودنك كونغو وكلته والله يا با إن دباتين ملاها مقارو كواح مع هذا وكلته إن كلا كونته حوجا ضدك كونغو جو وكلته دباتيان ملا نسنا باقي جو حيوانات كلوليين أنا من أحسن مرة الله كل ما حيوانات كيف دباتون حيث مثلا بقى حيوانات كواح كم دبارو كواح مع هذا ملا الله إن اللي بيع على كونته إن هذا حيوان نوعات له كلانته مركب قفك عصب وكلانته ميلها أستاذ يساقون حوالي يمكن وقت على غيابه أحمدو مركا تاسو كلا هذيك ولي مكوا كلانته ميل سرعة أو ميلها عند اللي هيو وقعدوا كلا مكاجو حمادي كاريجو ما يهرت مرة يوم حوالي السويناج لكن سواح معنا الثلاث بعد كنا أيان واحد أركي بالك يا شباب ما يكتير أمران كدنا جاري
markaas igu dhaweed xayawaan arko asxaabtaydu qaar ka mid ah in saaxiibkeeya maxamed shariif liyaado isagoo saasoo kaleeto meel ku tukanaya libaax ayaa u arkay kadibna waxa weeye isna gaarigiisu galay way dhacdaa mar in libaax la arko shabeelkaas oo kale arko sometimes waa dhacdaa mar waa dhacdaa safarka nimanka aad ka soo gashay ee welina aad ku jirto Axmedow waa imisa kilomitir hadda iminka waxay dhiman 600 kilomitir meesha u socday 600 bay shida waxaana soo maray 2500 kilomitir meelaha soo maray dhulka marka Axmedow Congo ilaa iyo South Africa ma sida uu wada cagaaray iyo wada qurux badan yahay dhulkan waa dhul cagaar weeye roobku kama qaado muddo 6 bilood roobku haya badankiisna waa cagaaran yahay Axmedow tirada darawallada Soomaalida ee gawaaridan oo kala wada haddaad isku qaado waddanka Zambia ilaa wadamada xagga bariga ka xiga maxaad ku tilmaami lahayd qiyaas ahaan wallahi horta qiyaas ahaan anigu tirada Zambia darawaliinta jooga oo kaleeto waa qiyaas kala ilaa Congo Tanzania xaggeeda warmaayo qiyaastii 1500 darawal Soomaaliya oo dhalinyaro darawaliintaasi ragoodayaala dhalinyaro wax kasta waa isugu jiraan waddankuna wuxuu leeyahay community isku xira oo Soomaali community baa darawaliintaas laga xukumaa halkaas loo yimaada iyo wixii markaas khabaarada iyo wixii tala soo jeedina halkaasna laga wada xukumaa Axmedow markaa sidii la yeeli jiray markii waddankii la joogay oo kale miyaa ka haystaan kirishbooy waa jiray xilligan kirishbooy ka haysan jiray 2 sano hore kirishbooy waa watay iminka laakiin kaliya baa iska socdaa oo marka gaarigu hadduu kaa xumaaday ee ku islaama wallaahi marmarka qaarkood waxaan isku raacnaa baabuur badan 5 gaari 6 gaari annaga is caawina iminkana baabuurta wadana waa cusub tahay oo ilaa hataa uma xumaadaan meelaha marayna meel waxa weeye magaalooyinku ku badan yihiin adeegga waa ka helnaa marka Axmedow maadaama saad sheegtay darawallada Soomaalida ay saa u badan yihiin jidka de waa ku kulantaan oo kuma qalootaan Soomaal kuma qaloonin badan baa ku kulanaa meel kasta oo sugu nimaanaa waddan kasta Botswana, South Africa, Congo, Zambia meeshaas ay Soomaali baad baabuur wata ugu tagaysaa marka baabuurta sidan saykoo kale kambaniya iska wada leh mise qaar dad gaari leeyihiin oo jiraan qaar dad gaari leeyihiin laakiin dhammaantood kambaniyaasi hoos tagaan sida arkayseen dee nin commandoso sideedoo kala mooyaane qofkan gawaarida la aqooni way ku adkaanaysaa inuu koro ama ka soo dego inkastoo aan gaari xadka waddanka Congo iyo meel u dhow toona haddana Axmed baan soo sheekaysanay oo ka mid ah darawallada ugu khibradda badan leh ee kambaniga iminkana maamulka ayaan kala sheekaysanayaa hadda hawlahooda iyo sida u shaqeeyaan iminka waxaan la joogaa nin ka mid ah agaasimayaasha shirkadda Kilwe Transport iyo Sanco Logistics oo xaruntoodu ay tahay magaalada Ndola Mustafa Umar Ahmed aad iyo aad baad mahadsantay xafiiskaaga nagu qaabay soo dhawo waa kuleena insha Allah ku soo dhawo Zambia waad mahadsantay walaal insha Allah Mustafa gawaarida shirkaddii loo shaqeysa ee waaweynay tiraahan wayntee shirkaddan Kilwe Transport iyo shirkaddan kale oo waxa weeye Sanco shirkadda Kilwe Transport waxa la aasaasay 2011 bishii July bartamaheedii intii ka dambeysay waxaan ka howlgalaynay wadamadan Zambia, Congo iyo South Africa, Botswana, Zimbabwe wadamadan bartamaha iyo koonfurta Africa waxayna ku shaqeysaa shirkaddu 120 gaari oo baabuurta waaweyn oo ka shaqeeya waxay qaadaan productyo kala duwan
sulfuric acid iyo petroleum product iyo dry cargo saddexdaas ay u qaybsamaan marka waana labada shirkadood aad aragteen oo Kilwa Transport iyo Sanco Logistics oo sister companies ah laba company oo isla leeyahay xaruntooduna ay tahay magaalada Ndola soo dhawaada xarunta company-ga ku soo dhawaada Cabdisalaan iyo Bafo welcome to Zambia Garani Ndola أدي أقل ما تصدق بكرة أحمد هدي سكرة نودقنا ملورك رامك الجواري اللي وحيسوي جرام بويلو أما أصلها قاعدة أما بطلها قاعدة يكون كلا حمول قاعدة بوريجا صح وحيسوي جرام لوضع قيود بيسوي جرام بويلو قيب أصل قاعدة وسلفارق أصل قاعدة يقيب وحي قاعدة بتروليوم برودكتس قاعدة إيو dry cargo qayb qaada saddexda qaybood oo transportigu wadankan u badan yahay ka kooban yihiin darawalada idin shaqeeya 120 ka gaari ma Soomaali u badan yihiin ma waxay u badan yihiin dadka wadanka Zambian ay u badan yihiin 70% above waa Zambian ilaa 30 meelahaas less than 30 baa waxay yihiin Soomaali ah laakiin inta kale waa dadka wadanka u dhashay weeyaan ومصطفى Soomaalida caan bay ku ahaan jireen walina ku yihiin waditaanka gawaarida waaweyn marka tiraahdo markaad eegto Soomaalida idin shaqeysa laakiin wadan walba shuruuc uu leeyahay wadanka Zambia waxa jira adduunka wadamada dhan waxay muhiimada siiyaan in shaqada la siiyo dadka localka ah wadanka u dhashay in la shaqaaleysiiyo oo fursadaha shaqada la siiyo marka regulationskaas wadanka ka jira dartood dadka Soomaalida wada siin karo shaqada waa in dadka mostly shaqada inta u badan aad siisaa dadka wadanka u dhashay marka sidaas ay keentay inay badnaadaan darawaliinta wadanka u dhalatay marka maadaama wadamada afarta inta badan ka shaqeysaan South Africa iyo wadamada dhexmarta oo Zimbabwe iyo Namibia iyo Zambia Botswana waxa la isweydiin karaa intaasoo wadana maxarumo sano kala ku leeyahay wadamada most xarunteedu waa halakan guud laakiin wadamada kale transport ba inta badan baabuurta ku maraan meelaha ka soo horseeda South Africa oo kale shaqada u badan South Africa ka hayna South Africa Congo halkan waa Jaiza waana xaafad ay caan ku yihiin jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Lusaka ee dalka Zambia waxa la ii sheegay halkan Soomaalidu inay deegaan ahaan ay ka dhigteen horaantii 60maadkii ilaa iyo 70maadkii inta u dhaxaysay qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed oo aan halkaas kula kulannay ayaan ka wareysanay halkan goorta ay soo gaareen iyo waliba siyaabaha kala duwan halkan ay ugu nool yihiin waa xarunta Soomaalida waxa la yiraahdaa Jaiza guud ahaan waxay ka tirsan tahay area-da loo yaqaan Emsdale xaruntan ama muqaayadahan iyo dukaamada tan oo ah xarun dadka Soomaalida ah markii ugu horeysay oo la furay tan waxay ahayd 1992 odayaashii meeshan furay ama centerkan businesska ah badankoodu maanta lama joogaan oo wax dhintay iyo wax tagayba way leeyihiin community-ga Soomaalida oo meeshan client-iga ka waxa lagu qiyaasaa ilaa 4000 ama 5000 inta u dhaxaysa ayaa lagu qiyaasaa waa xarun ay dadka Soomaalida iskugu yimaadaan waxayna u badan tahay maalmaha weekendiga sida sabtida iyo axad oo aan shaqadu jirin waa meesha lagu kala warqaato sida caadiga ah dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin goobo ay iskugu yimaadaan tanana waa goob kamid ah goobahaas ku yaala magaalada Lusaka ee Zambia magacayga waxa la yiraahdaa Caashe Yaasiin Ducaale wadankan Zambia waxaan imid 96 bishii 6 ilaa haddana waxaan ku joogaa nabadgelyo Soomaalida dhanna nabadgelyo ku joogta halkan waa meesha Soomaalidu degan tahay xaafadda Jaiza la yiraahdaa waxayna ka tirsan tahay magaalada madaxda Lusaka wax dhibaato ah oo aan ku qabnaana ma jirto ilaahay mahadis baanu ku deganahay wadankayagii tana noo labaysa annaga jaaliyada Soomaaliyeed halkaan ay joogtaa waa kan xafiiskoodii waana nala joogaan waana na og yihiin oo sidii wadankeeni ay noogu ogaan lahaayeen madaxda iyadu bay halkaan noogu og yihiin kuwani waa qaar kamid ah dhalinyarada halkan ku dhalatay isla markaana wax ku bartay waxna ay iga waramayaan dareenkooda bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Maxamed Barran Cali Barre waxaan ahay dhalinyarada ku nool dalka Lusaka Zambia waxaan ku dhashay Lusaka taariikhdu markay ahayd 1994 alxamdulillaah rabbil caalamiin iskuul ayaan ka bilaabay ilaa heer jaamacadeed ayaan hadda ka wadaa
aad ayaan ugu faraxsannahay run ahaantii wax dhibaato iyo wax hawl ah ama wax dhibaato macni kala maana kulmin jaaliyad fiican ayaan haysanaa aad u wanaagsan runtii dadka Lusaka ku nool dad isjecel oo aad macnihii iskugu duuban weeye intaas ayaan ku soo koobaya waxaan waxa la dhahaa Abdiraxmaan Maxamed Xaashi oo ku dhashay dalka Zambia 1994 waxaan ku dhameeyay dalka Zambia iskool iyo jaamacad Assalaamu alaykum magacaygu Farxiya Abdinuur waxaan ku noolaa dalka Zambia ganacsi baan ku haysanaa halkaan ku dhashay aabahay halkaan iyo hooyada halkaan bay isku guursadeen waxaan nahay dadka halkaan Zambia ku nool ku shaqaysanaa oo sharci ku haysanaa aad baan ugu fiicanahay waa wadan amaan baan joognaa waan fiicanahay qaxooti iyo dad sharciyo leh baan iskugu jirnaa aad iyo aad baa loogu barwaaqaysan yahay ganacsi waaweyn baan ku haynaa dad baabuur bay gadaan dad waxay sameeyaan guryo dad waxay gadaan taayiro ganacsi kala duwan baa meesha ku haynaa hadda imsaa u jeedin waxaan joognaa dukaanka waxaan gadna dhar raashin wax walba iskugu jira Soomaaliya wali ma tagin insha Allah laakiin waan ku tala jirnaa Soomaaliya tago كل حد دتك كنا الصوماليا لكن واقع قانا قال كأي حافظ بنو كلا قانا يجد ودن كل صوماليا هدوي لهاي ما وح كنا الأوجي يدوين كي قرابة يدم بتشوجه إن شاء الله وانتقي دونا صوماليا وأد بنوش علينا نتقو. بافا أنا أفريقيا شغلة مكتب شغلة يعني صوماليا شغلة ستيل سموه أفريقيا وصوماليا سموه. inkastoo dalkii Soomaaliya ay ka soo fog yihiin haddana waxa ay la socdaan xaaladda dalka ما شاء الله نو موشن waxaan ugu qoray berigi dhaweeyay laga keenay baarlamaanku ay ka keeneen mooshinka dawladda federaalka saas laajilgeeda ugu qoray marka alxamdulillah waa laga gudbay hadda TV-ga Universal iyo Bafo Hareri waa soo dhaweynayna Zambia ku soo dhawaadan leenahay xaqiiqatan Zambia dad wanaagsan baa degan waana la ku soo dhaweeyay soo dhaweyn fiican baa noo sameeyay وانا دقناها وانا كل دقناها سنة وضعنا كل دقناها وقت ديرنا وادقناها garaashkan weyn ee lagu magacaabo Oohan waxa uu kamid yahay garaashadii ugu horeeyay ee Soomaali halkan ay ka furato waxaana ka shaqeyn jiray darwalo aad u fara badan xilligaas 60maadkii ilaa iyo dabiiqadii 70maadkii mid kamid ah odayaashii hore ayaa halkan iiga waramaya waxaan ka shaqeynay 1973 up to this time baan ka shaqeynayay wax dhibaato oo hadda aan meeshan ku qabno ma jirno waa ku barwaaqaysanahay xoolaana ku leenahay wax walba waxa weeye xoolihii baa lagu yeeshay garaashkan waqti hore waa long time adigu 1974 1975 meelahaas ah wadankana waa ka shaqeyn jirnay waqtigii hore darwaliin ma ay lahayn darwaliinta ka shaqeyn jirnay Soomaali bay ahayd koobarkaanu ka qaadi jirnay meel yiraahdo Tongola Mine Mafalira Mine Inkana Mine Marmakuba Mine I'm back Dar es Salaam wadankuna wadan fiican buu ahaa wadan dhibaato saawle ma ahayn aad iyo aad wadan ka fiican ma jiro aan hadda joogno Saciid waxa uu kamid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku ganacsata waxana uu iga waramayaa doorka dhalinyarada ganacsiga ee dalkan Zambia Bafo aad baa mahadsan tahay adigiyo Cabdisalaam Xiriiri oo nagu soo baaqay dalka Zambia doorka dhalinyarada dalka Zambia waa door muhiim ah oo kalimo badan bay buuxiyaan businesska iyo dhalinyarada markii la eego businessku waaga hore wuxuu ahaan jiray kaliya transport laakiin waayadii dambe muddo 15 sano laga joogo hadda businesskii waxa moodaa inuu isoo bedbedelayo oo qaybaha kale oo businesska la gelayo sida in petrol station la furto dukaamo la furto warshado yaryarana la furo marka waxa ugu muhiimsan oo hadda businessyada rangareeya waa dhalinyaro kuwa qurbaha ka soo noqday iyo kuwa dalka nafsadiisa wax ku bartay oo wadanka ku dhashay ama goor hore yimi sideedoo kale businessku dalka Zambia aad buu muhiim u yahay marka dhinacyadaas oo dhan la eego horumar baaxad leh waa sameeynaya sida aad u soo aragteen iyo meelaha tagteen iyo businessyada soo booqateen
sector kasta hadda waa lagu jira oo business ah dhalinyaradu way ka muuqataa dalka Zambia generationkii nagu horeeyay oo wadanka aan ugu nimi oo odayaasha ahaa waxa moodaa hadda waxa bedelaya dhalinyaro oo businesskii la soo wareegayo odayaasha wadadii ganacsiga bay noo fureen wada fiican bay noo jeexeen bartii baan anaguna ka soo horumarinay oo na ka sii wadnaa wadadii noo jeexeena baan insha Allah ku taaganahay qaadaynaana wadanku way isbedelay qaabkii hore loogu noolaan jiray iyo hadda qaabka loogu nool yahay way isbedelay wadanka Soomaali badan baa timi oo qurbaha ka soo noqday Soomaaliya ka yimi kuwa wadanka ku dhashay oo demaantay ninkii qaxi ama ka hor yimi waa nin weyn oo door muhiim ah kaga jira bulshada qaybta dhalinyarada sida daraadeed dugsiyo quraana waa la furay madaaris baa la furay waxa la furay iskuulo u gaara Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah oo lagu barto maadooyinka kala duwan oo secondary-ga iyo dugsiga hoose iyo dhexeba si ula jaan qaadaan bulshada halka ku nool عبد الله بريء أتصوت عبرت زامبيا توقع شجورمه واحد سوقلي شنية تضباط يكون سوقلي شنية تضباط كي مركب موسود كسور رسمية مسيس وقت مبناه وقت مبناه قرتي موسى هذا قرمة توقع زامبيا واحد سوقلي زامبيا 1982 جنوري مركب واحد بدو كسور عبد الله ما تنزانيا ويا مركب تنزانيا ويا مركب سنة تنزانيا نيبا 75 هاي مركب إما كتن 1980 waxaan leeyahay markan 82 waxa weeye markan Tanzania nusli xsarajo ومركا انت انا زامبيا من تنزانيا دور سنه تنزانيا لح سنه joogay Tanzania مية سومرت عبد الله تنزانيا تنزانيا soo maran dadka inta ugu badan ee way soo mareen Tanzania عبد الله gaari marka wada darawal baa gaari wada siisay way ila xamar Kenya Tanzania kasoo shaqeeyay Kenya Tanzania kasoo shaqeeyay marka hadda waxa la oran karaa toos uma idin niman Tanzania soo degtay iyo wadamo kale way anigu waxaan markaa ka soo baxay dhulka 75 waatay 75 Nairobi waxaan joogay 4 habeen way 4 habeen markaan joogayna waan ka soo baxay waxaan Nairobi horta la yiri ordo baasaboor doono baasaboorka soo qaado oo kaalay niman magaalada xamar jooga waatay markii aan baas meeshii safaaradii inaan yiri baasaboor baan doonayaana gudaha la igu tooro waatay imise jir baa taybaan 20 jir baan hooyada beenta ka wasbaanay beenala baay haay waa la diiday marka min lagu baaso oo lagu diiday markaas waa la diiday marka inakeen baa la yiri niman la fasito oo Tanzania ka yimo la fasoosi tayba iigu yimi meeshii la fanooc ma marka la fuhu waa ilkihii maroodiga haay foloshi maroodiga waatay oo wadanka marka lacagtu ku leeyahay wax ku leeyahay aanad maraynaynin rag badan baa taatiireen ka noqdo milyan dheer ka noqday way markii aan imi Zambia waxa la Kenya markaan nimankaas ii yimaadeen waxay yiraahdeen maxaad meel goorma soo gashay wadanka waxaan imaka 3 habeen baa jooga habeen afraadkii bay yiraahdeen dhageyso diyaar garow waayahay baa habeen afraadkii baan diyaar garoobay gaari baan markaan waa la isooriyo markuu ninku isooriyay safarada wata baan ka cararayaan sidii waaba ku xiri doonaa haay marka waxaan nimankii bay soo qaaday Tanzania ayaani Tanzania marka wadankan Afrikada wadano si wanaagsan marka dadku u ganacsado oo u shaqeysto oo Soomaalidu ku badan tahay wadanku inta ku dhalatay iyo inta kale inta ku dhalatay ay badan tahay ayu bariga aha ninkii madaxweynaha ahaa wadanka marka dhowr jeer baa Soomaalida kiis lagu soo qaado la yiri lafaha nimanka lagu qabtay oo iyagoo gawaanidii u raranayeen lagu qabtay oo markii lagu qabtay baa la yiri xageeba ka keentan alaabtan tii waxaan waa keenay baa la yiri waa soo iibsan yaa xaga ka soo iibsateen waxaan ka soo iibsanay Tanzania
waa beenoo gudaha lagu gura maxkamad baa lasoo taagay yareeri bay arrintii gaadhay madaxweynihii markaa tanzania nimanka waxa lafaa lagu hayaa ma soomaali baa haa oo ma waxaa leedihiin hee soomaali baa intuu qori qaatay dhulkeennii ku digaafay oo intaasoo kuna maroodi soo dilay waatay stupid la kaalay baa la yidhi wixii waxaan ka dambeeyey keena baa la yidhi ima kale ooda ka qaada buu yidhi waana laga qaaday oodii imise nin baa haydeen marka annagu lafana laguma haystay waa soomaalidii markaa lafaa lagu haystay waa soomaalidii markaa lafaa lagu haystay yani wadanku siduu markaa lafaa waxaad uga jeedaa folmarodiga marka waxa weeye wadanku siduu dadka ugu wanaagsanaa soomaalida markaa ama madaxdiisa ugu wanaagsanayd iyo cadaaladda taalay ayay ahayd wadanka tanzania la yidhaahdaa markaa waxaa joogay nin la odhan jiray ina naxar ismaaciil naxar waa tahay dadku iyo baabuur yaryaroo ciiddaa ka badan oo siisawiyo iyo nooc walba lahoo taangiyaala oo taangiyaasa wadanka gudihiisa ayay ka shaqeeyaan iyagoo saliiddiis leh kii batrool dooniya waa booyadihii marka dadkii halkaa joogay odaygii baa lay geeyey wuxuu yidhi wariye hee maxaa doonaysa waxaan adeer shaqaan doonayay oo reerkiina miyaad halku yaallay shaqa ka weyday buu yidhi dee waxaan idhi ismaaciil adba reerka kamaad soo cararin soo adba reerka kamaad soo cararin baan wuu qosle wuxuu yidhi nin buu yeedho wuxuu yidhi kaxeeyo shaqasii baabuurtaa mid ku dar ma baabuurtaa saambiya joogtaa lagugu daraa mise waxaa lagugu daraa kuwan may baan adeer saambiya hay maqashiin marka soomaalidu halka joogto waad garanaysaa waxaa la yidhi tanzania qofkii tagaa hee ninkii la odhan jiray muxuu ahaa carabka ahaa ee daalkii ayaa yidhi saambiyaha tegine silsilado naara ka soo laalaaday ee malaawi iyo xagga maxaa la silsilado naara ayaa ka soo laalaaday waa sheeka Soomaaliya waa sheeka Soomaaliya marka waa gaalada wadanka haysatay ma ogtahay silsilado naara ka soo laalaaday ha tegine malaawi iyo xagga qabta malaawi baa muslimku joogay marka sidaa waxaasaa maskaxdayga cabdilaahu adigu markaad soo tacabiraysay adiguna masaasoo kalaad markaa damacaagu mu ahayn inaad Zambia timaadide wadamada kalaad beegsanaysay soo iska socotuun horta markii hore runtii socodkaygu wuxuu ahaa inaan ka dhoofo berigii carabta aad loo tegi jiray carabta la tegi jiray 47kii iyo waqtigii carabtu shaqooyinka badan loo doonan jiray marka qolooyin aanu garanay baa ka dhoofay Kenya markaasaan sii Kenya ka dhoofo Mombasa laga dhoofi jiray marka dhoof baan markii aan imidna shaqaan helay marka shaqadii markaan helayna waxoogaa lacagan helay markaasoo baaban sidii de mar haddii aad lacag doonaysay lacagtiina aad heshay maad iska sii shaqaysay halkan ba carabtii ka dhigaadstay halka Kenya laftigeeda ayaan shaqo ka helay markaas halkii baan ka shaqeeyay waxoogaa lacaga ka helay markaan waxoogaa lacaga ka helay haddana Tanzania waan ka shaqeeyay adoo waxoogaa lacagaan ka helay haddana markii dambe halkan Zambia waxaan u iibinaan baabuur ka iibsado baabuurtii baan ka iibiyey markaan baabuurta ka iibiyeyna waan ku yar shaqeeyey markaan ku shaqeeyey min muddo ana waxoogaa lacagan haddana kasii helay markaasaan siri demaad maxaa Tanzania ka noqonaysaa halkan aba halkan ba iska joog marka runtii wadankana waa weeyaan wadan dadkooduna iska qabooyay siyaasaddiisuna iska wanaagsantood iska dimuqraadiya uu ahaa ilaa iyo Kenneth Kaunda markaa madaxweynihii Kenneth Kaunda haystay wadankuna wuxuu ku xidhnaa markaa East Africa oo kuma xidhnayn South Africa iyo wadamadan jiraanka oo dhammi waxay ahaayeen wadamo wali la gumaysto dhowr iyo 70-nadii wadan kale oo Zimbabwe iyo South Africa iyo ilaa Mozambique wada xorriyadooda dagaalamay marka wadanku wuxuu ku xidhnaa East Africa Zambia waxa ku xidhnayd East Africa wuxuu soo degaa waxna ka dhoofaan marka dadka East Africa aad baa loo soo dhaweyn jiray iyagana marka halkan sida qiyaasayo dadii ka soo horeeyo fara badan oo Soomaaliya ugu timaadeen Soomaaliya dad badan baan ugu nimid waxaan aaminsanahay in kastoo Soomaalidu maartay qolo waliba taado hysteriga iyagu ay jeceliin inay iyagu sheegtaan libinta wixii libin leh wixii khasaarana way wada diidaan laakiin libinta waxa lahaa wadanka dadka keenay waxa weeyaan Ismaaciil Naxar buu ahaa ninkii dhowr iyo 60kii keenay baabuur fara badan oo cusub oo shaqada ugu horeysay ka bilaabay Zambia Ismaaciil Naxar buu ahaa
waxaad iga warantaa waddanka Zambia Soomaalida sidii noo kala soo dhaafta Kenya iyo Tanzania iyo maxay ugu xasili jireen miyaanay wadamada kale ee gobolkan qaar fara badan waxaad sheegtay inay gumaysi markaa ku jireen laakiin Congo kale iyo wadamo kale oo lamid ah jaaliyada Soomaalida degan ma jireen jaaliyada runtii waa laga mustafuri waa laga mustafuri dowladda lixdan ka hayd ba markaa hayd ba dabada laga galo wadamada laga mustafuri markaa Congo oo laakiin waa ku badnaayeen bariga waa ku badnaayeen oo wadanka qurahe nimcada taalana aanad malaynayn dadkiisuna gaajadiyo silca u baqteeya ilaa imika masidiba ilaa hatta bay ka sii daran tahay hatta bay ka sii daran tahay waxaad arkaysaa ciidan qodanayo ciidii intaas $1,000 laga siisanay aanu qalab baadi doonayo iyo qalab halka wax ma ku jiraan iyo midna aan lahayn nimcada ilaahay dhiga wadanka iyo sida dadkiisu silcu isaga haystay darxumada marka sababta Soomaalida waqtiga looga mustafriyo maxay ahayd waxaan bay ahaydun marka iyagu baa uu yiri waa foreign waa dad foreign foreign dad shisheeye waa dad shisheeye macdan badan baa laga gurtay waxay wadanka wuxuu leeyahay dheeman iyo dahab badan buu leeyahay marka dad badan oo ajnabi ah oo ay u badan yihiin Lebanese iyo dad kale oo magaranaysa Caraba amba ajnabi oo kuwan dibadda ka yimid waxay kala baxeen dheeman fara badan dahab fara badan markii operation lagu qaaday lama kala reebi karo foreignkii marka waxa noqdeen in lagu ajnabi oo dabada laga galo ajnabi oo dhan laakiin Soomaalidu wax weyn oo caynkaas oo ay ka sameyn jireen oo business oo caynkaasi muu jirin businesskooda aad buu u yaraa Cabdilaahi markaa Zambia markay timaado dabcan waddanku sidan ma ahay laakiin soo dhaweyn dadka ma kala kulanteen mise sida Congo kala leedii fogeyn jiray maya waddankan wuxuu ahaa waddanka markaad xagga eegto meel ka fog magaalada ka furo yiro tawaabiye la yiraahdo baan ku noolay fiidka ayaad ka baxaysaa magaalada waa lagu qabanayaa waa lagu xirayaa 84 diyaarad baa naloo soo kaxaystay laba diyaaradood waa naloo soo fariisinayay ku gura 96 qof baa la mustafriyay oo Soomaali oo la raafay oo sababtu maxay ahayd waxay yiraahdeen dawaa ajnabi wadanka sharci kuma ilahayn markaa sharci lahayn markaa ma loo dhakaa tahriibtan imika laga hadlaba ragii bilaabay baa ahayd tahriibta bariga kudaal baa loo dhigay wadanka waxa ka shaqeynayay ee qura ee wadanka wuxuu keenayay kana baxayay una keenayay waxay ahaayeen Soomaali bay u badnaayeen iyo wax carabtii Soomaaliya oo ka tirsan marka sharci ninbaa wuxuu goosanayaa bahal birmid la yiraahdo oo wadanka lagu joogo 6 bilood baa loo goynayaa wadanka magaalada ka baxsan haduu tago waa laga qaadayaa waa xidhayana waa mustaqbal marka waxa jirtay isaga ba dhibaato aan yaray yaa Soomaalidu kala kulantay waxa jirtay magaalada inaan casarkii ka carroowno oo boorigaas ka galafo habeenkii booriga soo hoyano boorigu muxuu yahay waxa weeyeen meesha cidlada dhulkii aydaas subaxii marka ilaa 10 ka ilaa 11 ayaad cidii wadooyinka marayay dadka dhageysanaysa oo meel xalay wax ma leelayo lama yeelin ninkii odayga Ibraahim waal oday saxaaq Ibraahim ayaa isagoo wuxuu yiri meel ku kaajaya ayaa islaan show la soo eriyayna daba fadhiisatay marka isma arkaan Ibraahim waal waxa loo jeeday waa nin maskaxda wuxuu yar dhibayay habartii ka tiisa falal ayuu yaa falal xalay markaasay tiraaniga Ibraahim markuu codkeedii gartay buu iska falal wala iska falal dadka wadanka ka soo raacday wallaana du malaynay wadanka anigu dhagalaan baan ku joogay dhagalaan sidoo ku joogtay dhagalaan waxa weeye mar alla markay yiraahdaan sharciga Tanzania kala ima waxaana Tanzania waxa jirtay maalin walba 12 markay tahay ayaa suwar laga qabanaya waa meel Soomaalidu markaa wada timaado qadkaas lagu cunaa oo dadsido ay haws soo fadhiisanayaan marka wax kale oo meesha yaala ma jirto wuxuu baa la kantamburusa baa lagu leeyahay kantamburusa waa sharci waa kaar yar oo national station
marka kantamulisadii haddaanay kantamulisadii laga soo bixin waa lagu xidhaya marka waxaa jira haddaad waxoogaa isaga dhigto markaad xaggaa tagaan dadkaas dad reer magaala bay ahaayeen oo waxay sii dayn jireen maalintii dambe wuxuu igu yidhi mid yaroo carbeed oo hooyadii Soomaali tahay igu yidhi muuse wax ma kuu sheegaa hee ma doonaysaa nimankaa inay isbaxsataan oo magaalo walba dee carar ku jiri maysid haa baan idhi dhagaqab yaa lagugu imanin buuri waay dhagaqab yaa lagugu imanin waaya annagoo waxaa iyaga cunayna iyo sida loo yimaado markaas katamulusho carabka yaraa waa dhiibtay anigii buuri katamulusho marka warweerka marka la hadli waa soo eegay buuri waawe intuu qadaadka saayirahay abana iskiyayle kolkaas intaan saro weegay baan iska soo jeestay markaas iwe kiiba markuu war uu yimutu dhagalay markaas uu warinku waa dhagalay markuu waa dhagalayahay ayuu degdeg u dhaqaaqay dadna ilmaad soo garatay war amsa waan gartay waxa hadaba ninkiisa kuma garanin adeeca dhagxan halkan taalaan inta urusay wada markaas uu abu wax kada wuxuu ki dhagala nafar kama qabanin maalintii meeshii والله أنا شخص قبل ما أنت حلا قبر قفكم حوها قف قالوا وي وما هدوا إيمانا يا بين هذين يدك كوك حسن شري بريك دبوا أنا قداي إن واطي عبد الله درب عبد الله أفك الصومالي مركو ودك زامبيا سوق الوقت جينا حجبوا حكي بلا بيشري horta gidi waxay ka bilaabi jireen shaqooyin waxa u shaqeyn jireen kambaniyada waaweyn badankoodu ninkii markaa wax la soo galana dhaqaalaha la soo galana baawur buu iibsan jiray wax quree Soomaalidu ka shaqeysan jiray waa baaburtaas ay hayeen baawur buu iibsan jiray ninkii aan haysan lacag baawur iibsana wuxuu shaqeyn jiray Soomaalida kale u shaqeyn jiray markaas ugu badnaa markaa kambaniga Ismaaciil Naxar oo kambani weyn oo markaa baawur badan ayaa loo shaqeyn jiray iyo kambaniyo kale oo sida oo markii dambe oo haniyo soo baxay markii dambe 2020 laakiin 60meeyadii oo dhan iyo 2020 Naxarun baa loo shaqeyn jiray dadkoo dhan badankoodu عبد الله ولا بريغا ودك واد ku noolayd ilaa maanta waad ku nooshahay ganacsade weyn baad ka noqotay oo company gaadiidka iyo waxyaabo kale oo ka shaqeysta kule markaad eegto sida nolosha bariga ahayd iyo maanta waxa ugu weyn ay ku kala duwan tahay baad oran leeyd qofka Soomaaliga marka la eego walaal qofka Soomaaliga marka la eego horta dadku hadduu shaqeysanayo shaqo haysto هذه شيء نرشي سودة واحد لسه قطعون نقالي سكوحدن تاعي لكن واحد مسلم كاسو مالو آد بيس بريجوه وقد قارة بدن تاعي بريجوه ده توقف بدنه تبقى على البيهاين إمك كوميال باش أيا كش قيستو شوجا كمبنية ده إمك كش قيستا كوميال بيكاريان بريجانو نمينا لبس الضحك لبس كمبنية بيهاين كمبني أو هنول السمية مركي دم بي كمبني جسمه لها إمك كوميال كمبني على خطي كوميال بابور بيلين Soomaalidu imka aad bay ugu wanaagsan wadankan fursadaha markaad eegto ma barigaas ay fiicnaan mise imka me fursaduhu runtii dhaqaale wadanku barigaas ka dhaqaale wanaagsan dhaqaalaha wadanka markaad eegto barigaas ka dhaqaale wanaagsan laakiin imka $100 waxa weeyaan imka markaad eegto de kulli wadankii uu koray wadankii oo waxa weeyaan imka waxaan joognaa dhowr iyo 30 sanadood iyo 40 sanadood baan joognaa marka sidii Afrikada bariga hore iska haydee dhaqaalo ay iska haystee dadkii waxaad moodaa iminka dadkii lacagtii bay barteen oo dhaqaali bay barteen oo qof walba wuxuu doonayaa inuu ma garanaysaa lacag badan ama dawlad ha u shaqeeyo amba company ha u shaqeeyo lacag badan laakiin bariga hore waxaad arkaysaa inay dadka had iyo jeer lacagta access dadka lacagta ay soo gashaa dad tirsan bay ahaayeen dhaqaalo bariga aad buu u wanaagsanaa maxay ku dhacday in markaa fursadaha sidana barigaana Soomaalidu heli jireen imkana ay helaan mahayntooda ka badanta dadka wadankan mise dadka wadankan ku fiicnaan shaqooyinkan ay Soomaalidu qabatay gaadiidku ugu horeeyo runta weeyaan gaadiidka kama shaqeyn karaan nimankan wadanka waxa madad dadka wadanka boqolkiiba markaad eegto 95 waxa dadka business kale amba baabuur leh amba kambaniyada kule xoolaha ku haysta waxa weeyaan waa dad ajnabi weeyaan marka dadka wadanku waxay ku wanaagsan yihiin runtii shaqaalnimadoodu way wanaagsantahay dawladoodu way wanaagsantahay waa dawlad degan oo aan weli wax dhibaato kale laakiin waxa la rogrogo iyo ganacsiga iyo kuma fiicna kuma fiicna saambiyaan kuma fiicna ganacsiga
inay ku fiicnaadaan lagama yaabo intii muddooyinka uga qaadanaysa. maxay ku dhacday haddaan su-aal kale kaa weydiiye xagga ganacsiga cabdilaahi in soomaalida aan loogu iman xagga gaadiidku xitaa eeshiyaanka oo ganacsiyo xoog la waddankan ku leh inaanay qaybta gaadiidka soomaalida ugu iman waxa weeyaan gaadiidka shaqadiisu waa shaqo adag weeyaan runtii shaqooyinka la qabto shaqada ugu adag waxaa odhan karaa waa shaqada gaadiidka markaa soomaalidu gaadiid bay markii hore waddanka ku timid way la fahmeen gaadiidka way uga khibrad badan yihiin maxaan ku dhahdaa hindida caddaanka minooda waa la wada xidhooda kaceen ee Zambia ka shaqaysan jiray oo iyaguna xagga gaadiidka ku jiray gaadiidka way ka baxeen soomaalidu aad bay gaadiidka iminka markaad eegto waddankan gudihiisa waxa ka shaqeeya boqolkiiba 50 ka badan waxa weeyaan Soomaali baa siladay cabdilaahi wuxuu sheegay in Kenya uu ka soo shaqaystay faralaab uu ka soo helay deedna Tanzania sidoo kale uu faralaab kale ka soo helay deedna uu xagga yimi adigu maxaad ku dooratay halkan Zambia inaad timaado waxaan ku timaaday Tanzania Samtic Rom baan ku imi hase ahaatee aad joogtid meel ay igala colaysadaan naftaydu ay ka diidanay wallahi baan garanayn Tanzania way halkan meel naftaydu ay nabcaydo ka nabcayd inaan wali oo Tanzania marsadan u nacsanaa meel kale meesha aad saa u nacbay imsa sanood baad imka joogtaa 30 iyo waxaan joogaa 6 sano cabdilaahi sidaad sheegtay ganacsatada waddanka ka noqotay weliba ganacsada weyn baad ka noqotay markaad u eegto fursadaha ganacsiga maanta halkan ka jira Soomaali fara badan baa jirta oo indhaynaysa wadamada Afrika kii ay tagi lahayn ma kula talin lahayd Zambia in ay yimaadaan ay wax ka bilaabaan runtii aad baan uga talin lahaa waayo sidaan ku sheegay waddanka boqolkiiba 95 ka badan wax ajnabiga gacanta ugu jira marka mar haddaanu jirin qof wadani oo competition kula dadka wadaniga dadka ajnabiga ka riixda shaqada oo markaasay noqdaan magaranaysaa in la colaatamo laakiin dadkii wadaniga ahaa ilaa iminka business dad soo jeeda uma ega markaas aad raadid kala ajnabiga u shaqeeyaan iyo dawladda u shaqeysan marka intii ajnabiga u shaqeynaysay ma kala jeclo kolba ajnabigii de shaqo siiye meeshii jooga mar haddaanu dad wadani oo waddankii ku kula tartamay aanu jirin de wada arkaysaa waddanka 95% gacanta lagu hayo ajnabi ku hayo marka jaanisyo badan buleeyay mid kale de inaan salaanahay TV-ga iyo adiga iyo waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay maxaan ku dhahay Ibrahim iyo inaan baafayna salaamo inaan salaamo TV-ga iyo madaxdiisana aad baan u salaameynaa runtii way idinkuna aad iyo aad baa mahadsantihiin intaasi waxa ku dhan barnaamijkan oo ay gala qayb galayeen cabdilaahi xaashi faarax iyo muuse xasan wacays oo labaduba ka mid ah odayaasha Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Lusaka ee xarunta waddanka Zambia barnaamijkan oo kale intaynu dib ugu kulmayno haddii aan la yiraahdo waa Cabdisalaan Hereri oo idinku dhaafay nabadgelyo aad iyo aad baad mahadsantihiin